runtii wasaaradda arrimaha gudaha waxaan isdhihi karaa si wanaagsan ayay u shaqaysay maadaama ay soo diyaarisay hawshan aadka u muhiimka ah laakiin waxaan isleeyahay wax badan oo weli dhiman markii la rabay in la sameeyo maamul hoosaad waxay u baahan tahay marka hore in la sameeyo wacyigelin dadka loo sameeyo wasaaraddu ma samaysay waayo waa maya waxa kale u baahan tahay isdhihi karaa maadaama waxa isla degan ay dad yihiin dadkana ay wax kasta ka dhaxdhaceen in loo sameeyo dib u heshiisiin wasaaraddu ma samaysay waayo waa maya waa jawaabta intaas markaan ugu baxay sida aan la soconno qolooyin waxaa jira hay'ado ah qaabilsan horumarinta deegaanada hadda ay diyaar yihiin sida aan la soconno maamul goboleedyada waxa la yiri soo gudbiya degmooyinkiina soo gudbiya Puntland ugu yar waxay gudbisay 42 degmay gudbisay meesha ugu yar aan ka soo qabanaya waa degmooyin 42 degmay gudbisay Hirshabeellana tirada u qoran markii la isku daro waxaan isleeyahay 12 ma dhama ilaahan kugu dhaari haddii ilaahay la baryayo waal weyn lagu baryaa inaan 12 la hor tagna waxaan isleeyahay waa nasiib daro waxaan tala ku bixin lahaa degmooyinkii hore u jiray balaas degmooyinka kale oo lagu dhawaaqay xilligii madaxweynihii hore balaas wixii ka dhiman gobolka Hiiraan oo degmooyin u qalmo ka dhiman inta lagu daro balaas gobolka Shabeellada Dhexe waxa dhiman ayagana in lagu daro lagu dhawaaqo dhammaan waxa allaala waxay noqdaan ama 35 ha noqdaan ama 30 ha noqdaane hal la gudbiyo si toos ah barnaamijkaas loo saaro si ay dhammaan ugu qayb qaataan in horumarin laga sameeyo dalka Hirshabeelle laakiin haddaan gudbino 12 iyo wax la mid ah lax meeshay isdhigtaa lagu qalaya berrinta saad u keenay doontaanna adinka yaqaane annaga maadaama aan xildhibaanadii matalaya deegaanka waal weyn ilaahay aan ku barinna waal yaryaan lagu barinay degmooyin badan hal qoro hal gudbiyo wasaaradana waxaan qabaa hal lagu celiyo aad iyo aad u maasantii